Maska oo ah kuwa ugu qaniyada kulul ayaa wuxuu soo weerarayaa goob ay joogaan daanyeerada, halka daanyeeraduna yihiin kuwa ugu caqliga badan xayawaanada. Daanyeerada oo buurta korkeeda jooga ayaa waxay arkayaan maska. Halka hoose ee buurtana waxaa joogo carruurta daanyeerada iyo jiir kaasoo god ku leh asigana meesha. Daanyeerada ayaa badbaadinaya carruurta iyagoo saaraya buurta korkeeda iyo geedaha meesha ka dhow. Maski ayaa wuxuu arkay inuu meesha jiir ku jiro, kadibna wuxuu gudaha u sii galay godkii oo jiirku uu ku jiray. Daanyeerada oo buurta korkeeda jooga ayaa waxay rabaan inay badbaadiyaan jiirka meesha ku jiro, waxayna sameeyeen inay buurta korkeeda ay ka soo tuuraan dhagxaan badan. Jiirka oo ah mid aad u urayn badan ayaa wuxuu madaxa ka soo taagtay godkii uu ku jiray, wuxuuna soo aaday dhanka banaanka wax yar. Laakiin markii uu banaanka soo aaday ayaa wuxuu arkay maski, kadibna wuu booday, laakiin inta uusan dhulka gaarin ayaa waxaa qabtay maski. Daanyeerada oo arkay in la qabtay jiirka ayaa waxay sii laba jibaareen weerarkooda, ayagoona buurta korkeeda ugu soo ganayo ama ugu soo tuuraya dhagxaan fara badan. Mid ka mid ah daanyeerada ayaa u soo degay dhulka sidoo u badbaadiyay jiirka, wuxuuna sameynayaa inuu ka soo jeedo maska jiirka. Halka kuwa kalena ee buurta korkeeda ay ka soo tuurayaan dhagxaan fara badan, waxayna u muuqataa inay labada dhinac ka soo weerareen. ugu dambeyntii uu ka soo jiiday wuuna ka badbaadiyay. Waxa inoo muuqda xayawaanka daanyeerka inuu yahay xayawaanada midka ugu caqliga badan, isagoo ayna ku yareen damqashada iyo naxariistaba.
ah.